السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada YouTube channelkii walaalkiin Kaari Official sida xagga si kusoo arkaysiin maanta waxaan halkan soo fadhiistay in aan wax ka tuso barnaamijkan ku cusub TikTok-ta gaar ahaan in lacag laga sameeyo TikTok-ta maxaa ka jira lacag laga sameeyo TikTok-ta haddii ay jirto si yaa laga sameeyo si loo geli wadamadii ka shaqeynaysa lacagta si looga baxaa dhammaan waxaas oo dhan maanta rabaa in video kala helo haddana hore channelka uga mid ah soo dhawo subscribe tirafna wac laga sii haddii kan la ayro saar labada jeer baa lagu ku banaantahay soo dhawaada meetii marka hore barnaamijkaas gudaha geli doona insha Allah waxaan isku dayaynaa step ayr oo dhinacna xaggan shaashadayda ka tusaysa wax la oranayo waxaan bariyahan soo kordhay in TikTok laga sameeyo lacag gaar ahaan bishan September laga bilaabo imika waa week ka hor meelaha ku dhawaad ayaa wax bilaabantay in lacag laga sameyn karo TikTok barnaamijkaas ayaa soo baxday oo Soomaali badan ay soo xitaa sheegtay TikTok taqaariyahan lacag jira inkastoo ay wax cid sharaxday jirin markaan asaas u jirtay baan sirmaanta aan jeclaysan si fiican u sharaxo qofkan hore ugu maanta ka arko oo sida uu moolkiisa ugu apply gareynaya ama uu u dalbanay xataa oo aan haran ka tusno insha Allah markaan soo wanaagsan like waa muhiim comment ka diya su'aal baahan tahay ku saabsan ama TikTok ama waxyaabo noocaas ah xataa si direct ah ka soo jawaab si toos ah ayaan u soo jawaabi doonaa marka iyadana wax sameyn doontaa حاجة وسومباد ماركتاني مقرتين horta marka hore su'aalaha si kala horeeyaan in soo gallo intaayna sharaxaad iyo waxa bilaabin waa صح TikTok tabta YouTube ta select adina ka wanaagsan ayaa lacag loo sameeyaa YouTube ka soo shaqeyn jiray uma shaqeeyo YouTube shuruudihiisa mid ah shuruudo ka duwan bilaa iska socod wanaagsan insha Allah xarjinay in si fiican loo socno asxaabta wixii TikTok karay waxa ay isticmaal TikTok tadiisii dhex jireen luuqa u raacay kan marka hore gudaha galo TikTok waxay ogolaatay inay video kasta lacag ku sameeyso halkii video balacag baa laga helayaa intii doontaa leekato laakiin video ahaan baa lacag looga helayaa marka koowaad TikTok hadda waxaad ka dhigan kartaa sida shaqadaada caadiga aad guriga jooga ama meelaha dadkii iska soo dhexgeli jiray maanta shaqay u tahay update kan cusub ee TikTok la timaaday waxa uu la mid noqonayaa sida YouTube-ka markastoo hesho views badan waa markastoo lacag badan samaysa barnaamijkan TikTok lacagta ku bixinaysa horta waxa la dhahaa TikTok Creator Fund waxayna bilaabantay bilowgii September lacagaha ay ugu tala gashay TikTok inay ku qarash gareyso oo dadkaas lacag ku helaan waxa weeyaan marka la eego UK iyo Europe waxa weeyaan lacag 50 milyan ku dhaw hadii la eego dadka America ku nool 1 bilyan oo lacag ayaa sanadka kooda ku qarash gareynaya marka sanad kasta lacagtu sii kordhisa feeska dad maanta inta ku helistay in ka badan ku sii helisa mar walba korbi oo say kaasa ma soo darin wadama aan ku shaqeynin may oran wadanka lacagta laga helayo ama TikTok ma shaqey karaso taa macnaheedu waxa weeyaan dadka ama Afrika jooga ama meelaha kale waxay ka ogaan doonaan marka qaabka tusaymanka ay u ogaadaan ay ka raadiyaan hadii uu soo baxdo lacagtu helayeen laakiin hadda waxa la hubo oo la soo qoray waa Europe xataa Europe dhamaanteed ma wadaha wadamada qaar iyo America dhamaanteed step inuu socono hore ka galina mobilkiga soo qaadansan waxaad gelisaan sanadii tilmaamaha insha Allah gelisaan wada eegaysan in horta barnaamijku idin furay hadii aan ku furnayna hadda fursa hadii uu diiday intaana cilada kala jirta iyo followers laga baahan yahay iyo wax yar dhanba ku sheegay YouTube-ku caadiyan marka YouTube-ka weeyaan YouTube-ka caadi wuxuu baahnaa 1k subscribe kun subscribe iyo 4000 oo daawasho ah xagan way ka duwan tahay TikTok waxa weeyaan uu yaraan waa inaad 10k haysataa 10k waa inaad haysataa follower-kaaga waa ta koowaad talabaadna waxa weeyaan bishii u dambeysay waa in views-kaaga marka la isku dardaro 30 cishay u dambeysay waa inay gaadhaa 10000 maxaa ma 10 hal cishay ku daawata ka badan kooda marka hadii xitaa aanad qofka kuna gaari macna fiisiisa aad badnayn waa 5 video hada soo dhigto bishii xataa bisha 10 video soo dhigtay oo min kun ku daawato oo filan mid kale horteeduna ah in la ogaado qofku waxa weeyaan kunkii views ama kunkii daawasho waxa uu ka heli karaa qofku lacagtu ka heli hadan horoska si gudaha galo 2 senti ama 3 senti ama 4 senti waa inta celisaanadu 3 senti bade marka isku celiyo marka 3 senti hadii uu qofku views-ki ku helo sooran markuu wax ku soo dhacso wala xiyar laakiin maaha 3 senti balinka ku dhufo hadii 100 kun daawo hal video haduu qarxo caadi inta TikTok waxay naqaan waxay leedahay qarxid oo marka saa dhowr video soo dhigtaan mid baa qarxa oo 100 kun daawato 100 kun halkii kun buu yahay 3 senti marka la isku dhufo lacag fiican baa ka soo baxsan hadii si kale xataa views-ka uu qarxinta bisha dhan hal video ku qarxay kulli sidaas ka hal video oo qarxa bisha ma waayis xataa hadii views aan samayn baadu aan video qarxabaan raadin oo halkii video ay ku daawato 2000 bad soo soo qaad waa soo dhiga 100 video bishii 100 ku dhufo 200 3 senti ku dhufo
waxaan tusayaa sida loo active gareeyo ama looga dhigo loo apply gareeyo ama loo dalbado haddii kugu jirin. marka koowaad intaan wax kalaba sameynba update garee TikTok-taada haddii doonti delete garee mar laba soo deji ama intaad application-kaaga tagtid update mar labaad. markaad update gareyso waxaad u baahan tahay pro account meel ay ku qoran tahay inaad heshid oo aan markan caadiyan aad leedahay aan kugu jirin, laakiin marka aad soo update gareysid ayaa la rabaa inaad barnaamijka hadana gashid. marka soo galaysaa mobilkaaga soo qabso TikTok-taada ku dhufo. marka mobilkaaga marka soo qabsatid TikTok-taada furaysaa waxaad galaysaa halkii TikTok-taada furaysaa waxaad galaysaa qaybta yare u shishaysa oo nidicana mid halka yare bad galaysaa waad ku dhufanaysaa waxa weeye halka yare username-kaaga iyo views-kaaga la ka heshid. marka saad tagtid waxaad tagaysaa saddexda calaamadood ee u sareeya. saddexda calaamadood markii ku dhufatid waxa ku soo baxaysa ta koowaad ee manage account ku dhuf ayaad ku dhufanaysaa haddii English ku qoran tahay inaad manage account meesha la macnaha tahay ee macna kale ku yaalo baad ku dhufanaysaa. waxaad tagaysaa halkay u hooseysa ee cas ee ah halka cas ee u hooseysa ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay switch pro account qoran tahay baad ku dhufanaysaa. waxa soo baxaysaa laba waxbaad kala waxa soo baxaysaa labada baad kala dooranaysaa waa creator iyo haddii aad tahay business. marka design u badan ay business ma jirto creator ku dhufanaysaa. waxaad kala sii dooranaysaa nooca tahay ma dhakhtar baa tahay ma wax kala tahay maxaa tahay oo sideed u joogtaa meesha. marka aad already waxaan u badanahay markan ee majority-gina entertainment iska dadka iska faniga waxaad ku dhufanaysaa kala soo hadhay email waa mail iyo female ka tahay baadana soo hadhay female baa tahay soo ma female ku dhuf ama nin baa tahay ku dhuf mail kabacdi ku sii dhuf kabacdi ku sii dhufanaysaa saasad soo cancel iris ka dhig way dhamaatay. mar haddii halka soo gaadho dhamaatay kadib dib u galaad kadib waxaad sameynaysaa halkii yare saddexdii dhibcood ku dhufanaysaa waxaad tagaysaa manage account hadda kuma dhufanaysaa waxaad hoos soo dhaadhacaysaa halkan pro account ama haddii business ku qoranto kolba wixii ku qoran baad ku sii dhufanaysaa. saama ku dhufatay maxaa ku soo baxay tan hoose creative font ee u hooseysa saddexaad ayaad ku dhufanaysaa. uu reeday wata halkaas lacagta keenaysaa wata barnaamijka halkii lacagta ku qornayd zero ba hadda halkaa ku qoran haddii sentiyada halkaas kolba ka kordhinta kolba video adoo mid kale jirta oo ah inaad idan la ogaado wax la xisaabiyo. haddii marka maanta aad video badan soo dhigtid oo arki weyd lacag ku kordhaysa ha iska suug waxa weeyaan waxay xisaabinayaan 3 cisho video marka maanta aad soo dhigtid 3 cisho ka bacdi lacagtiisa la soo qoraya waa ta koowaad. talaabada hadda tahay lacagta markaad rabtid inaad la baxdo kale iyadana waa tabti YouTube-ka hal bil ka bacdi baa lacagta lagu siinaya. markaad bishan shaqaysa sagaalaad oo kale tobnaad baa lacagta helaysaa saas oo kale noqonaysa. dadka loo ogoliyo sharci ahaan loo ogoliyaa inay lacagta ka sameeyaan TikTok wadamadii joogaan halkii joogaan shuruudaha yare ku xidhanna waa kuwan waa inaad joogtaa UK America Spain France iyo Italy adigu Europe macnaha inteeda badan mararka qaar wax laga helo wadamada qaar may soo qorin laakiin wadamo badan oo aan halkan ku jirno Europe oo dhan baa laga helay. waxa kale oo laga baahan yahay horta waxyaabaha shaxmada ku jirto dadka waxyaabaha shaxmada soo dhiga iyo wuxuu kuma helayaan waa tabti YouTube oo kale akhlaaqadu meeshu yeelatay waa ta koowaad. marka waxa laga baahan yahay inaanad xitaa qofka dadka soo qaatay fiidiyada dadka kale iyaguna lacag kuma helayaan waxay ku barayid bika gelisay. waxaa loo baahan yahay fiidiyo original oo samaysatay sida imaka Soomaalida badankeedu ay soo sameeyeen channel channel marka soo sameeyso fiidiyo way own fiidiyo bi samaystaan taas kale loo baahan yahay. ama fiidiyo aad kaliya iska hadlayso soo fadhiisatay shadii kale ku sii xidhan waxa weeyaan inaad 18 jir gaadhay. Soomaalida si caadi ah yareysa adoo 30 sano jir hadda sireed bal 17 iska qoray oo diloosinayd hadda gal halkii bedel edit leh dada weynee waxa shuruuda ka sameeyay 10,000 ugu yaraan waa inaad haysataa followers-kaaga bishina ugu yaraan waa inaad 10,000 oo views heshaa. taasi dhima lahayd oo ugu fudud filaya noqon qof uu fiidiyowga uu isaga leeyahay fiidiyowguna waa original noqdo horna uu soo sheegay. taasi waa mar walba ta horeysa ta u dambaysa iska ilaaliya. marka dhamaantii asxaabtooda salaamay waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga wada hesheen oo step by step ay la socoteen. qofkii su'aal u baahan ama wax yar fahmi way ay soo qorxaa hoose commentiga ana dad badan ba iska fadhiyi jireen maanta dadka TikTok iska fadhiya iska shaqaysta lacagta iska urursada account sameeye xisaabsada weydi ka ilaaliyo baasha wixii damaaragtaan dhaqan xumaa weydi ka ku baashaara lacagta TikTok dadkii YouTuberada hara maanta TikTok dib ugu sayaan YouTube kana subscribe shalay wax rajinaya subscribe saartaan idinku waan idin salaamay dhamaantiin.